qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo xogayaha dawladda hoose ayaa si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay xarunta dawladda hoose kaga hadlay xaaladda kagan ee ka jira gobolka Togdheer. xildhibaanadan ayaa cod dheer ku shaaciyay in la geliyo dalka xaalad degdeg ah kana deyriyay dhimashada dadka u jiilbaxay haraadkii dhimashada oo soo badanaya maalmihii u dambeysay. mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale eedo kulul u jeediyay gudida abaaraha heer qaran ay ku eedeeyeen inaanay soo dhaafin magaalada Hargeysa, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa 17 shirkan jaraa'id يعني xildhibaanada golaha deegaanka oo xafiiskayga maanta ku qabanay waxaan runtii baaq dheer u diraynaa horta marka hore Ilaahay waxaanu subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa Ilaahay baa gacmiisa lagu dhargaaye Ilaahay naxariistiisa imka wayna dil taagantay Ilaahay mid khayr qabo Ilaahay noo shubo waxaanu si dadka u sheegnaa horta hadaan nahay anaga xukuumadda waxaanu garab la taaganay taalkayaga inaanu waxba kala hadhin hiiliyahooba dadka reer Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ee abaaruhu saameeyeen dadka qurba joogta ah dadka ganacsatada ah ee gobolkan u dhashay waxaanu aad ugu sheegaynaa baaq hoose nagu xildhibaanadii golaha deegaanka qaar kamid ah wuxuu daaran yahay oo isugu nimi oo dhamaantay sugaya keenay maanta inaanu dadkayga dhimanaya dadkayga beelaantu hayso dadkayga gaajadu hayso inaanu la qaybsano dhibaatada dareen kayga aanu runtii muujino inaanu runtii aanu ilaahay inaanu barino in ilaahay ka qaado dhibaatada in ilaahay roob u shubo wada gaaro dhammaantood oo aan dhibaatayn in xaaladdan maanta aanu ku sugaya gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliya in ilaahay ka qaado waxaan isugu nimi aanu runtii maadaama xildhibaanadii loo soo doortay degmadan iyo xoogayihii aanu nahay waxay sugaya keenay dhamaantay oo shirka jiraado si wada jiro ugu wada qabanayna inaanu ka damqano runtii aanu adkaysan karo in xaaladii oo maalinba maalinta kasta saacadba saacad ka sii xumaanaysa way nagu dheeraatay abaartii halkii ugu xumayd ayay maraysaa Ilaahay bay naga qaadi karo bilaadan naga qaadi karo cid kasta way dadaashay haday dawladda iyo haday tahay shacab iyo hadaan qof iyo haday reero hoose tayba jifi wala dadaalay haddana Ilaahay baa wax gaarsiin kara dadka wuxuu baan runtii aan doonaa inaanu maanta waxaan isugu nimi dhamaantii inaanu runtii aanu sheegno inay xaaladdu meel xun marayso oo aan la eegan karayn oo aan dagaal laga fareysan karayn oo aanu runtii ahayn kaliya in loo gurmado dadka waxaan runtii aan soo jeedin lahayn dadka in la hawlgeliyo cid kasta oo wax ka qabanaysa ilaa wax ka qaban kare waxa weeye in kaam la sameeyo in qorshe loo sameeyaa magaalada ku dhimanayaan dadkii miyigay ku dhimanayaan miyigay ku gaajoonayaan adag gaajo imika walax la soo sheegayay hadda riixilo wala soo sheegayay gaajo ugu dhintay wala soo sheegayay weyn ogeyn higlo weyn ogeyn inkii istildiray halkan Yuroob guudkeeda weyn ogeyn balacan la weyn ogeyn lagama sheegan karo dhimashadu intay marayso lagama sheegan karo waxaan maraynayaa qofkii de maqla inuu maartay maqal laakiin waxaan jeclaan lahayn in cid kasto oo kale wax noo deeq kartay cid kale wax nagu filaysin kartaa ma jirtee Ilaahay ummadiisa ha u naxariisto oo raxmaad khayr qaba noo shubo Ilaahay saasaanu ka baryeena marka xiga maanta waxa dhimanaya dadkii duuyo Allah ma hadal hayo dadkii baa dhimanaya dhowr iyo 20 qof bay maraya inta gobolka laga soo sheegaya ama haystildilo ama ha mulaaroro ama naftu ha qabatee gaajaha u dhintay dhowr iyo 20 laga soo sheegaya dadka waxa ka mas'uul dawladda waxaan leeyahay ta dawladda dhexe ee madaxweynuhu horeeyo xafiisyada hal la xidho xaalad maanta xafiisya laga shaqeeyo kuma jirno dadka Ilaahay baa idinka mas'uul dhigay idinka ka mas'uula war dadka ha loo soo kaco oo wasiirku xafiiska ka soo xidho oo ha xidho agaasimuhu ha xidho oo madaxweynuhu ha xidho xaaladda gobolada bari xaalad imka la sii fadhiyo ma taagna Togdheer qura ma wixii bari ka xiga waa lagu dhintay war waxaan leeyahay inta waqtiga ka hadhay Ilaahay baa mas'uul laga dhigay soo dhaqaaqa waxa la haysan soo qaada Ilaahay ku sokow horta cidna wax kama qaban karto Ilaahay baa wax ka qaban kara Ilaahu cirkaaga noo soo dedejiwan Ilaahu raxmaan khayr qaban noo soo Ilaahu dadka ka soo gaar ummadaadii xoolihii Ilaahu wadogto way madheen imka nafi bil aadamka iyaguna si saqiiraya si socda Ilaahu uu soo gurmo dadkana waxa loo baahan yahay waxan in lagu samro maanta aad bay u sii liitaan gobolada barigu dhowr iyo 10 bay marayaan dhimashada gobolada galbeedka hadii qof ka dhima la maanta cidba ma fadhideen
laakiin bari maxaa ka haysta xukuumaddii iyo dowladdii sida galbeedka loogu shaqeynayo dee ha loogu shaqeeyo gobollada barigu mayna dadka ka mid ahayn 12 qof baa ku dhintay cid weli wasiir quro gurmad usoo baxayna ma naar maanta wasiir ma hadheen dee haddii gobollada galbeedka dhimasho ka dhici lahay mise dee waddanku waa kala dowladee waan la aqoon oo dowlad gaaraa dee xukunta intan bariga ha la soo eego gobollada bariga ha loo soo jeesto xaalad adag waddanka ha la geliyo il gaarana ha lagu eego marka wiigan ugu dambeeyey ilaa 15 bishan aynu abriil oo dhan badhe waxaa bilaabmay dhimashadii dadka oo soo kordhaysa dadka imka inta noolla waa bilaa nafaqo waa tabcaan markii ay waayeen neef ay qashaan neef ay listaan iyo neef ay dhaansadaan iyo neef ay iibsadaan markay xooluhudii ka waayeen mooraali ahaan bay iyadoo awalba abaartu ay jirto oo aynu ogeyn iminkana aynu marayno ilaa 12 bilood oo ay soconaysay haddana waxa maanta kalifay in aanu baaq soo jeedino waxa weeye iyadoo xaaladii sidii hore ay ka sii korodhay oo ay xaaladii gobolka Togdheer ay noqotay xaalad cakiran oo sidii hore aad uga sii adag marxalad cusub ay gashay marxaladaas oo ah markii hore dee wuxuu baynu ogeyn iyadoo xooluhu dhimanayaan laakiin waxay u baahan yihiin in wax la qabto oo la dadaalo runtii sidii rag horeba ka sanqariyay dee 10 bilood oo dhow abaartan weyn haysayo biyo dhaamis iyo cunto la'aan xoolo ay haysay laakiin wixii way ka sii dartay faashii abaarta ahayd ee sii ballaaratay way sii fiday way sii durugtay xataa gobolkan Togdheer oo quraymka ma haysatee Soomaaliland markay 6 gobol tahay 3 baa faashii Khadar Cabdirasaaq Salibaan Khadar Hanad muqbaahiyaha caalamiga Somali News Burco